السلام عليكم أحبابي ميل والبا joogtaan waa idin salaamay isku soo laabasho wacan oo wanaagsan muddo kadib ku soo laabto channelkayga waa anigoo ah Dr. Sajiya waxaan ka hadlaynaa maanta waa maxay hamiyirada haweenka dareenka kacsiga ee haweenka waa mid isbedbedel badan in uu kaco ama uu yaraado badanaa waxaa la xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo lamaanaheeda ama isbedelo waaweyn ee ku dhaca nolosheeda sida uurka, dhalmadeyska iyo xanuuno fara badan oo la soo wajaha dumarka. Rabitaankii hamiga qofka waxa ay la xiriirtaa xaaladda caafimaad ama mid nafsiyeed ee uu qofku ku sugan yahay. Waana in xal loo helaa arinta marka qofka haysato inta aanan laga fikirin in la daaweeyo ama siyaabo kale loo maareeyo. Haddaba waxaa jira calaamado lagu garto hamiyirada dumarka. Calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu garto dhibaatadan ayaa ah in haweeneydu aysan wax rabitaan ah aysan muujinin. Daraasad la sameeyay ayaa waxay sheegtay 40% ka mid ah oo haween ah in ay dareemaan xaaladan waqtiga ka mid ah noloshooda. Kuwa dhibaatadan ay ku raagto waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 5% ilaa 10%, inkastoo markii arrimahan laga hadlayo aanan la isku waafaqi karin wixii dabiici ah iyo wixii aan dabiici ahayn. Qofba si ayuu u arkaa hamiyirada. Kala fikir duwanaanshahaas ayaa keeni kara niyad-jab iyo walwal, laakiin waxay khubaradu sheegeen haddii dareenkiina iyo rabitaankiina uu yaraado in hoos u dhac ku imaanayo xiriirka. Maxaa sababa rabitaanka haweeneydu in uu yaraado? Rabitaanka haweeneydu wuxuu ku dhisan yahay arrimo dhowr ah oo aan kala dhaxbixi karin sida caafimaadka jir ahaaneed, caafimaadka nafsiyan iyo khibradda waxyaabaha ay rumaysan tahay qaab nolol maalmeedkeeda iyo heerka hadda u wada nool yihiin iyada iyo lamaanaheeda. Fariin ku socota ragga. Fadlan ogow in dumarku ay si sahlan isku bedeli karaan dareenkooda inta aadan eedaynin ama aadan dhibsanin cagajiidka ay ka muujinayso rabitaankaaga. Isku day in aad fahanto cilada jirto iyo waxa soo kordhay. Ha noqonin qof dantiisa oo kaliya ka fikira. Ogow jacaylka, kalsoonida iyo isfahanka in ay ku yihiin tiirka nolosha ee lamaanaha.